kusoo dhawow channelka Priority Club oo idinka imanaya waddanka China. Magacaygu waa Shukur Umar. Channelka waxaan kusoo gudbiyaa ganacsiga China, Alibaba, waxbarashada China, nolosha China, iyo waxyaabo badan oo la xiriira China. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, fadlan gambaleelka furo, like dee, share dee, subscribe si aanad u miskareen amaba aanad magaranaysaay aad ula socotid the latest update aan soo gelino channelkaygan. Muuqaalka maanta aan ka hadlaynaa waxaa weeye haddii aan haysan lahaa $5,000 ganacsi nooceeya ayaan waddankii ka bilaabi lahaa. Muuqaalka ayaan u guday ay dhici lahayd haddii maanta aan $5,000 haysan lahaa ganacsi nooceeya ayaan bilaabi lahaa. Waa su'aalo aad nagu soo noqnoqda macaamiisheenu na weydiiya. Haddii maanta aad $5,000 gacanta ku hayn lahayd oo joogtid waxa weeyaan Hargeysa, Muqdisho, Jigjiga, Djibouti, wherever meesha doontid joog, ganacsi nooceeyan bilaabi lahaa ase shakhsi. Ma waxaad bilaabi lahayd ganacsi dadkoo dhan ku jiraan? Ma waxaad bilaabi lahayd ganacsi kuu gaar ah calashaan ganacsi nooceeyaad bilaabi lahayd? Ganacsi waxaad bilaabi lahayd lacagta degdeg kugu soo celiya oo faa'iidadaadii kuu soo celiya mise mid dadkoo dhan ay ku jiraan? Run ahaantii waa su'aal aad iyo aad u weyn oo una weyn. Haddaba haddii aan jawaabta u guda galno, ganacsi waxaan bilaabi lahaa dadku ku yar yihiin oo dad badan wadin oo suuqana aad looga baahan yahay, high demand ah. Sababtoo ah $5,000 lacag yar maaha. $5,000 haddii si sax ah loo isticmaalo oo la maareeyo lacag yar maaha, lacag badan. Kaliya su'aashan ugama jawaabayo jawaab qurux badan iyo inaan macaaneeyo ama aan waxaan doonay iska idhaahdo. Su'aashan waxaan kaga jawaabayaa jawaab la xiriidha aqoontayda iyo waxa weeyaan khibradda aan u leeyahay ganacsiga China muddooyinkii u badnaa aan ku jiray. Sababtoo ah waxaan ogahay in Soomaalidu ay jeceshahay ganacsi waxa weeyaan lacag yar lagu bilaabo oo kooban, kadibna faa'iido degdega laga helo, kadibna sii kobca. Maadaama aan ogahay waxa weeyaan baahida ay dadka ugu qabaan ganacsi degdeg na lacag u soo celiya, sidoo kalena ayana u noqdo shaqo abuur iskeelin ay ku sameeyaan. Haddaba waxaan kuu sheegayaa maanta su'aashaydan waxay daaran tahay. Waxaan kuu sheegayaa ganacsigii haddaba aan bilaabi lahaa haddiiba ay dhici lahayd inaan maanta business furi lahaa, ganacsigii aan furi lahaa. Kow, sababta aan u dooran lahaa ganacsigaas. Number 3, sidaan lacagta u maarayn lahaa ama u kala jebin lahaa. Number 4, khaladaadka aan ka fogaan lahaa inta aanan gelinba khaladaadkaan iska ilaalin lahaa. Iyo numberka u dambeeya oo ah sidii aad adiguna u bilaabi lahayd, sidii aad u bilaabi lahayd qofkay daawanaya. Haddaba haddii aad haysato $5,000 lacag ah, ha bilaabin ganacsi aad adigu jeceshahay. Lama rabo inaad bilowdid waxaad adigu jeceshahay, waayo adigu nafsadaada ganacsi uma bilaabaysid. Ganacsi waxaad u bilaabaysaa dadkaad u bilaabaysaa, okay? So waxaad isu daydaa inaad bilowdid ganacsi ay dadku si high demand ah ugu baahan yihiin ama maalin walba u baahan yihiin, every time u baahan yihiin, sidoo kalena problem solving oo waxa weeyaan dhibaato xallinaya. Isu day inaad bilowdid. Tusaale ahaan waxaan ku siinayaa tusaale yar oo kooban. Ganacsiyada waddankii aadka looga baahan yahay waan kuu sheegayaa. Waxaa aad loogu baahan yahay ganacsiyada la yidhaahdo household products ama waa ganacsiga wixii guri la xidhiidha. Hadday noqoto carpet, hadday noqoto storage, waxyaabaha weelka ama maacuunta la saaro ama lagu kaydiyo, hadday noqoto home appliance, waxyaabaha cuntada lagu samaysto, waxa weeye toonta, kafeeda, galka, any kind adigu wixii la xidhiidha guri oo dhan. Kow, cosmetiga. 2, mobile accessory waa muhiim. Mobile accessory imika teknolojiyadda casriga lagu jiro waxa weeyaan mobile accessory uu ku xidhan yahay, macnaha teknolojiyadeennii baa ku xidhanba. waxaad arkaysaa qof odhanaya charger baa iga xumaaday, qof earphone raadinaya, qof power bank raadinaya, qof raadinaya whatever wax la xiriira mobilka, qof cover mobile raadinaya arkaysaa, qof protection raadinaya arkaysaa. waxyaabaha mobile accessorieska indhaha ku hay haddii aad doonaysid ganacsi lacag degdeg ku soo celiya wey. Alaabta jikada ayaa iyaduna soo raacda. Kitchenka waa muhiim. Alaabta kitchada hadday noqoto weelkii caadiga ah, hadday noqoto wixii ovenkii, hadday noqoto kan ukunta ama beedka lagu sameynayo, whatever wixii jika ama madbakh gelayo oo dhan iyadana indhahaad ku haynaysaa. Iyo product si yararoo iska qiimo jaban oo
baa iyaguna soo raaca intaas. Dadka qaar waxay u maleeyaan ganacsiga weyn inuu yahay ka ugu fiican, laakiinse ganacsi yar oo si joogto aad u wado oo si fiican u maareyso oo koska waxa weeyaan ama kharashka ziyaadada aad iska ilaaliso baa wax walba ka fiican, oo aad fahansan tahay faa'iidadii soo galaysay iyo qaabkii aad u soo dirsan lahayd. Haddii maanta $5,000 aan haysan lahaa, waxaan ku hadlayaa afka dadka doonaya inay ganacsi bilaabaan. $5,000 si fiican ma u maareyn lahaa? Ma waxaan gelin lahaa hal product baan gelin lahaa, ma labaan gelin lahaa, ma 3 baan gelin lahaa, ma qaar productyo aad u fara badan baan gelin lahaa? Jawaabta waan sii dhaadhici doonaa. Sababtoo ah haddii aad lacagtaad haysato aanad risk u bereerin ama aanad khatar u bereerin markaa ganacsi gelaysid, ganacsi weligaa kuma guuleysanaysid. Dadkeena waxyaabaha haysta waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta inay aad uga baqaan riskiga ama khatarta ay ka baqaan. Waxaad arkaysaa qofka odhanaya niyow lama hubo ganacsiga haddaan galo saasaa igu dhici, oo wax la huba jira. Maanta intaa ganacsatada wada arkaysid wada waaweyn oo dhan ilaahay baa weynay, ganacsatada wada arkaysid oo dhan nin walba meel hoos ka soo bilaabay, nin walba riski buu u bareeray. Haddii aanad khatar u bereerin ganacsiga kuma horumarisid, taa ogow. Haddaba haddii aan jawaabteeda u dhaadhaco, anigu maanta haddii aan ganacsi $5,000 ku bilaabi lahaa, waxaan ku bilaabi lahaa ganacsi la dhaho import plus retail. Import plus retail waa maxay? Alaab ayaan China ka keensan lahaa. For example, alaabta marka China ka keensado 3 baan u qaybin lahaa. Waa ta koowaad wholesale baan ku iibin lahaa, qayb ka mid ah jumlad oo ay lacag degdeg ah ku soo celinaysa. Qiimaha jumladuna waa taqaanaa, waa dhaadheynaysaa, waa ka dhaadheynaysaa. Marka retailka lacag degdeg ah ayay ku soo celinaysaa, waa cash, waa hand behind, oo alaabta kuma fadhiisanayso. Number 2, online sales ayaan sameyn lahaa, oo maanta digitalka waynu ku wada jirnaa. Hadday noqoto TikTok, hadday noqoto Facebook, hadday noqoto Instagram, YouTube, meel walba dadkeenu way ku jiraan. Online sales waxyaabaha ugu muhiimsan weeye inaad online ku gatid ama aad ku iibsid. Number 3, waxaan sameyn lahaa distributor center ama retail center, store yar oo dadka doonaya xabad inay qaataan ay imaadaan oo si toos uga adeegtaan. Taas ayaan geli lahaa anigu maanta. Sababta miyaad garanaysaa? Waa maxay sababta aan sidaa u sameyn lahaa? Sababta waxa weeyaan hal dhibaato oo dadkii haysata waddankii jooga ayaa waxay tahay inaanay qofku helaynin supplier uu ku kalsoon yahay. Supplier oo China uga dirsado alaab uu ku kalsoon yahay aanay si fudud inuu helo ay adag tahay. Oo supplierka maanta ayaa helayo waxaa helaya oo awoodo qof tusaalaan marka laga yimaado dadka yar alaabta loo dirsanayo, qof awoodo maanta tigidhka iyo kharashka China kaga bixi lahaa, qof noocaas baa awooda. Supplierkan waa taqaanaa ma hawl yara. Qofka alaabta meelaha Chinese ka alaabta ka iibsanaysa, warshada ka iibinaysa, inaad si fudud u heshaa ma sahlana. Marka dadka waxaan u sahli lahaa in ay helaan alaabtii ay ka dirsan lahaayeen China, ay ku helaan qiimo macquul ah. Taas ayaan sameyn lahaa, aan iyagina u fudaydin lahaa, anigana alaabtii ka socon lahayd. Taban ganacsiyada marka alaabta aan keeni lahaa oon hore idinku sheegay waxaa ka mid noqon lahaa household products, alaabta guriga, kitchada, sidoo kale cosmetiga, sidoo kale spare parka oo waa daily necessity, maalin walba baabuur waa la wadaa. Sidoo kale mobile accessory isaguna waa daily necessity, every day waa loo baahan yahay. Sidoo kale travel products, alaabaha lagu safrayo, hadday noqoto alaabaha yaryar kuraasta yar campingka, waxyaabaha la xiriira oo dhan. Alaabtan sababahan u dooranaya waxaa ka mid ah 1, alaabtan horta qiimaheedu jaban yahay. Number 2, alaabtan dadka ayaa aad ugu baahan, dhiminkooda badan. Okay. Number 3, shippingkooda ama rarkooga kaarkooga aad buu micnaha space badan kaama qaadanayo. Number 4, hal department oo alaabtan ka mid ah, hal package lacag badan baa laga sameyn karayaa halkii xidhmo ama halkii kartoon. Tusaale ahaan haddii aad keento 300 oo xabo ama 500 oo xabo, waxaad sameyn kartaa qayb wholesale ba ku iibin kartaa 100 xabo kale, 100 xabo kale waxaad deedna dhigi kartaa Instagram, 100 xabo TikTok. Online iyo waxaad u kala qaybinaysaa wholesale iyo retail sidaan soo sheegay. Taas waxay kaa caawinaysaa in lacagtaada cashkaaga si fiican kugu soo noqdo
oo markiiba aad alaabtiis dhaafisod kala ergarayso alaab kale aad dirsto dad badan ayaa waxay leeyihiin $5,000 ayaan haystaa waana lacag badan runtii waa lacag badan laakiinse waxay rabaan inay shanta ku iibsadaan magaalo dhan alaab dhan taasi ma dhacayso waa qalad kulama taliyo dadka waxaan kula taliyaa qofku inuu hal product ama laba product at least laba product hadduu badiyo inuu laba product ka dhigto tusaale ahaan $2,500 kaba dumar $2,500 cabaayad kugu baranayaan dadkii si fiicanna alaabtooda iibinaysaa waanay ma garatay waxaadna noqonaysaa qof soo dejiya kaba dumar iyo cabaayad amaba kaba dumar iyo boorso amaba maxaa la odhan jiray saraawiil rag jeans for men iyo allahumma salli ala maxamed kaba rag inaha wax iskombilida oo isqaadanaya oo tusaalehaan haddii customerkaaga maanta u baahdaan ku dhahaan niyo waxaan u baahan nahay surwaalkii waa naga gaday ama naga iibsay aaway kabihii waxaad maajikareynaya anigu inta badan dadka waxaan kula taliyaa in qof walba uu ka qaato meenaha lacagtiisa inuu keliyo hal shay ama laba shay waa at least markuu badiyo sababtoo ah qofku waxay u sahlaysaa tan inuu qofku aad u fahmo deeply oo si fiican u fahmo baahida dadkiina ku bartaan hadda ma fahanti horta waxaan waa wada khatar waa riski qofna maanta ma odhan karo waxaan ka cabsanayaa haddaan lacagteeda labadaa product wada keliyo in laga iibsan waayo dabcan ganacsina ma geli kartid mana horumari kartid ilaa aad soo jabtid ood soo kuftid ya samir badan baa loo baahay samir badan maalinunbuu ilaahay ugu talagalo bay kuu qarxi marka wax kasta tijaabadu waa laga maarmaan dad badan baa marka waxaad arkaysaa iyagoo leh $5,000 wax badan baan ku iibsanayaa xaggaasuu khaladku ka bilaabmaa mistake u horeeya xaggaasu ka bilaabmaa laakiin markay dadku sidaa leeyihiin khaladaadka ku dhacaan waxaa ka mid ah inay lacagtoodii wada geliyaan alaab aan la hubin meenaha alaab aan laba garanayn waxay tahay aan la soo hubin waxay tahay qofkeena lacag buu iska gelinayaa qofku doona ha u dirsado laakiin waxa weeyaan inspectionist ma soo marinayo kow number 2 alaab wuxuu keenayaa aan suuqaba looga baahnayn aan high demand ahaynba caqabadda u horeysa ee ay ganacsato yaryari suuqa uga baxaan miyaad garanaysa alaabo aan looga baahnayn uu qofka iska keenayaa waxyaabaha economiga lagu dhigto ama dhaqaalaha waxaa ka mid ah supply and demand waa maxay supply waa wixii aad keenaysay demandna waa baahidii dadka ama suuqa ka jirtay marketka marka waxa weeye labadaasi haddaanay isku balance garaysnayn ganacsigaagu ganacsi waxa weeyaan la odhan karo oo la taaban kara maaha mid lagu kalsoonaan kara maaha sababtoo ah maanta waxaynu u iibsanaa dhimaanba waxu iibsanaa baahi tusaaleaan kabaa kaa gogo-ay adigoo kabihii aanay kaa gogo-in aa xidhnayd miyaa suuqa iska aadaysaa oo aad iska soo gadanaysaa aad iska soo iibsanaysaa kabo waxa weeye aan cusub baahi baa jirta aad kabahan u iibsanayso kabahaagii waa kaa gogo-ay suuqii ma socon karayso waxaas leedahay dad baa ku dhihi ruuxa maxaa ku dhacay hebel maanta waa sidee surwaal baaba ama shaar aa xidhnayd baa suuqa dhexdiisa kaaga jeexmay xataa xaafadii inta aad gaadhaysid kuma fikiraysid waxaa leedahay xaggan aan ku leexanayaa dukaankan baahi degdega baa timi soo baahi iyadoon suuqa baahi ka jirin alaabtaas haddaad iska keentid waxaan loogaba baahnayn waad ku fashilmaysaa ganacsigaas markaa dad badan waxaan uga digaa alaabtan aad keenaysid ma baahi baa jirta mise ma jirto waa qodobka kale waxa weeyaan dadka qaar baa borodogan ay iibinayaan maba fahansanaba oo iska soo gatay qofaa laga yaabaa inuu iska jecel yahayba borodogan uu gadayo ama uu iibinayo dadka qaar baa iska interest gareeya oo iska jecel alaabtaas hebel baa beri iibiyey ama hebelaayaa iibisay ni ama waan iska jecelahay businesskaas yes waa jecesha businesskan laakiinse ma adigaa iska gadaya ma adaa iska iibinaya why you love it this business maxaa u jeclaatay sheelan business jacayl maaha dadka baahida ay rabaan baa la rabaa in la buuxiyo marka dad badan baa jira oo imka China soo safra ayagoo product ay rabaan inay gataan ama ay dhoofiyaan ama ay iibsadaan oo cargo ka saaraan iyagoo qaar badan garanaynba wallahi oo fahansanayn bay maanta
taasina waa caqabad qofku markuusan garanayn productgan ha iska iibsan horta marka tusaalahaan imika waxaan idiin sheegaya mobile phone accessory waa business aad u fiican waa dabcan waa run mobile phone accessory aad buu u hawl badan yahay micnaha waa business deeply aad u dheer marka loo dhaadhaco mobile phone charger baa ku jira earphonadii baa ku jira power banki eg baro ha iska boodin oo ha iska odhan waa order geysaya 10 kartoon 50 kartoon no saa waxba ma shaqeeyaan baro maxaad baranaysaa voltage-ka ampere-ka waxaad baranaysaa waxyaabo badan baad ku dhaadhacaysaa waxaad baranaysaa qaabka waxa weeyaan ay u shaqeeyaan jaajaradani muddo intee leeg buu dabka uu hayn karayaa muddo intee leeg buu waxa weeye warrantigiisu ama garantigiisu ay tahay haddii ay wax ku dhacaan cillado sideen uga hortagaa sideen warshadii ula macaamulaa aan uga wada gorfaynaa si ay macnaha say xal iila gaari karaan sidee xal iila gaari karaan oo waxa weeye ay iga caawin karaan in barodhagaygii xalkiisiina la ii helo dadkiina aan uga gado marka barodhaga waa inaad fahamsan tahay waan ku dheeraaday xafadaas barodhaga you should understand marka hore waa inaad su-aalaha soo socda isweydiisaa kow waa maxay barodhaga aan iibin karayo aan micnaha aan ka iibin karo dadka kow number 2 yaa iga iibsanaya ama yaa iga gadanaya number 3 intee in leeg baan ka faa'iidi karaa markaan gado ama markaan iibiyo kadib sideen u kaydiyaa ama warehouse xageen ka helaa warehouse aan alaabtayda aan dhigo muhiim waa qodob muhiim ah alaabtaada xagee dhigan lahayd numberka u dambeeya uguna muhiimsan sideen u suuq geeyaa marketing waa muhiim marketing waa cajiib marketingku dadka qaar baa Soomaalida waxay aaminsan yihiin marketing qofka oo ka af Soomaali badan yahay inuu ka marketing fiican yahay no waxba sabab ma shaqeeyaan traditional marketing ba Soomaali badan ku jiraan oo wadankiya traditional marketing imika laga baxay caalamku isku bedelay online marketing ama digital marketing isku bedelay so digital marketing waa maxay inaad alaabtaadii ku suuqaysid Facebook Instagram TikTok meelo badan aad online ka xoog saartid sababtoo dadkii caalamku isku bedelay technology dad badan waxay ku jiraan online ka marka waxa laga baahan yahay inaad marketing kana inaad fahanto macnaha waa inaad course marketing qaadato aad adigu ismaal geliso ama baad consultant waxa jira company consultancy oo dadka ka caawiya qaabkii ay u iibgeyn lahaayeen alaabta asanaaqado haddii aanad su'aalaha isweydiin oo haddii aanad su'aalaha ka jawaabi karin lacagtaadu way kaa baaba'aysaa oo su'aalahan xagga hore ku xusnay wey qodobka labaad wholesale baan samayn lahaa markaan leeyahay jumlad aan micnaha alaabteedii ku gadi lahaa waxaan rabaa yaan target garanayaa marka cidda aad target garanaysid waxa laga rabaa kow waa hooyooyinka guriyihii iska fadhiya baa target garanaysaa hooyooyinkaas ayaa target garanaysaa waad u bandhigaysaa hadlay alaabta baan haynaa waa kan qiimo fiican baan ku bixinaynaa waayo ayagu waxay rabaa inay kasii gadaan ay kasii iibiyaan islaamaha jaarka oo lacageed iska saartaan marka hooyooyinka waa target garanaysaa marka wholesale doonaysid inaad ku gadid number 2 dukaamada yaryar ee aan awoodayn inay China wax ka soo gataan ama ka soo dhoofistaan bakhaarada waaweyn qiimayaashooda ay dhibayaan bakhaaro waaweyn bay ka qaataan kulli alaabta ama Omar ama indhada yar saas oo kale kuwaasoo kalena waa target garanaysaa okay number 3 waxa target garanaysaa dhalinyarta doonaysa inay shaqo abuur waayo qofkii markuu isku dayo inuu wax gado ama iibiyo qofkan waa qof diyaar ah oo diyaar u ah in noloshiisa wax ka bedelo oo u diyaar ah in maxaa la oran jiray macnaha qofkii motivation baa galaya nafsiyan wuxuu dareemayaa deganaansho waayo wuxuu isleeyahay nin karti la waa tahay oo meel ka soo baxay ama hablaha iyaguna waxa weeyaan doonay inay ganacsi furaan dadka dhalinyarta baa target garanaysaa oo wholesale-kii baan ka hadlaynaa iminka yaa numberka u dambeeya waxaad target garanaysaa dadka alaab degdeg raadinaya dadka qaar baa alaab degdeg raadinaya oo raba meel inay ka helaan ama magaalada ay ka kala go'antay alaabtaas tusaalaan ku siinayaa alaabta haddaba wholesale-ka aan ku bixin lahaa waxaa ka mid ah waxyaabaha ilkaha lagu cadaydo barashka ilkaha lagu cadaydo maxaa la odhan jiray waxyaabaha kijada maxaa la odhan jiray waxyaabaha sportska dhalinyartu ay
kubadda ku tagaan garamada garanka surwaalka kabaha waxayaan buumada kabaha la xidho kubadda lagu ciyaaro waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo fara badan oo ay ka mid tahay waxyaabaha bathroomka ama musqusha suuliga loogu talagalay iyadana waan ku iibin lahaa wholesale iyo soap holder waxa weeyaan baasha saabunta la saaro tawaalka marka qofku uu isqallajinayo ku jiro adigu waxyaabaha bathroomka mobile phone accessories iyo waxa aan soo sheegay oo dhan intaasaan wholesale ku gadi lahaa haddii markaa $5,000 aan haysan lahaa maanta maxaan geli lahaa qaybtii u dambeysay baan ku jirnaa waa online sales baan geli lahaa sababtaa maanta wuxuu isku bedelay caalamkii online TikTok, Facebook, Instagram, whatever meelo badan ayaa jira ma raba inaan ku fogaado horaan uga ganacsiga afraad ama u dambeeya haddii maanta waxa weeyaan aan $5,000 aan haysan lahaa maxaan gelin lahaa one stop sourcing for a small import service micnaha hal meel oo aad ka wada helayso alaabtii aad China u dirsan lahayd alaab sameyn lahaa tusaale ahaan dadka wadankii jooga waxay rabaan in China alaab looga keeno laakiin ma yaqaanaan ama ma garanayaan supplier ma raadin karaan supplier sababtoo ah China ma joogaan ma yaqaanaan negotiation ma yaqaanaan qaabka loola kala kortamo ma yaqaanaan ama ma garanayaan quality control haddaba xagga fursad baa kaaga banaan adiga ay daawanaya fursaddaas waa maxay micnaha dadkii waxaa ka caawin kartaa inaad China suppliers aad u baadho haddeedna maxay tahay quality control samayso wax badan aad u samayso adigoo xaggaa jooga ayaad u samayn kartaa annagaana kaa caawinayna cooperation ban ayaanu samaynaynaa waxaanu rabnaa dad nala shaqeeya oo maxay tahay dadkii wadankii joogay alaab u baahnaa iyo annaga isku kaya xidha waayo qofka dhalinyarta wax badan buu fahmayaa in qofkan supplier maxaa la odhan jiray ka caawiyo supplier product research negotiation quality control wax badan marka dhalinyarta daawanaysa haddii aad tahay qof xirfad leh xirfadahaas ku shaqayn kara oo dadna keeni kara dad keeni kara waxa weeyaan waan kuu baahannahay inaad nala shaqaysid team baan u baahannahay team waan rabnaa aa shaqeeya haddii haddaba aad rabto in servicekaas oo dhan lagu qabto in supplier lagu raadiyo quality control price negotiation whatever waxyaabaha la xiriira China inaad alaab la soo degtid alaab yar alaab weyn waxaad nagala soo xiriiraa nambaradayda profile saaran channelkana like dhe share dhe subscribe dhe sii fogee muuqaalka si aadan u miskareen fiidiyoyada aan soo duubi doono for the next days aad baa ugu mahadsantay muuqaalka daawashadiisa fi amaan illah